warqad ka soo baxday midowga Yurub ayaa waxaa lagu xaqiijiyay in xayiraadda looga qaaday maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo muddooyinkan la daaladhacayay xayiraad aad u xooggan. midowga Yurub ayaa xayiraad ka qaaday taageeradii uu siin jiray maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya isla markaana ogolaaday in dib loo bilaabo howlaha kala duwan ee maamulkaasi. maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxaa taageerada laga joojiyay bishii December ee sanadkii tagay kadib markii rabshado ay ka dhaceen magaalada Baydhabo inta lagu guda jiray doorashada maamulkaasi, taasi oo ka dambeysay kadib markii la xiray Mukhtaar Roobo Abu Mansuur oo kamid ahaa musharaxiinta isla markaana horey uga soo tirsanaa Al-Shabaab. booliiska Koonfur Galbeed ayaa waxaa lagu eedeeyay waqtigaas inay qayb ka ahaayeen rabshadaha ay ku dhinteen dad badan oo u badnaa taageerayaasha Mukhtaar Roobo. warqad ka soo baxday midowga Yurub oo ku taariikhaysan 31 May oo ay heshay qaar ka tirsan warbaahinta gudaha dalka ayaa lagu sheegay in go'aanka xayiraadda looga qaaday Koonfur Galbeed ay ka dambeysay ballanqaadyo ay sameeyeen maamulka iyo dowladda federaalka oo midowga Yurub warqad u qortay bishii Febraayo. lama sheegin waxyaabaha ay ballanqaadeen labada dhinac. warqadda ka soo baxday midowga Yurub ayaa waxaa ku saxiixnaa wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya iyo safiirada dalalka Jarmalka, UK iyo Soomaaliya, waxaana arrintan ay tahay tallaabo ka caawin karta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya in dib u soo kabasho aad u xooggan uu sameeyo maadaama dhaqaalaha maamulkaasi inta badan muddooyinkan si weyn uu xayirnaa. madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf waxa uu kulan degdeg ah isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada Soomaaliya kaasi oo isha si weyn loogu hayn doono waxyaabaha lagu lafagori doono. madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa kulan degdeg ah isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada kadib qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha. wararka aan helayno ayaa sheegaya in madaxweyne Xaaf uu doonayo in uu isugu yeero dhammaan madaxda maamulada si ay kaga wada hadlaan xaaladda dalka sida qoraalka oo ku qoran luqadda Ingiriisiga lagu sheegay. qoraalka ka soo baxay xafiiska madaxweyne Xaaf ayaa lagu sheegay in dowladda dhexe ay ku fashilantay dhammaan waxyaabaha looga idmaday sida lagu sheegay, waxaana muuqata in ay doonayaan dowlad goboleedyada inay si gooni uga arrinsadaan. sidoo kale qoraalka ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka gaabisay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, taas bedelkeedna ay ku mashquushay duminta maamulada sida ay Galmudug aaminsan tahay. kulanka ayaa ka dhici doona magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug, waxaana sidoo kale beesha caalamka ay uga baaqeen inay il gaar ah ku hayso xaaladda Soomaaliya oo ay u arkaan inay sii xumaanayso. maamulka Galmudug ayaa eedeyn adag u jeediyay dowladda dhexe ee Soomaaliya, waxaana ay sheegeen inay duulaan ku soo qaadeen maamulka Galmudug ayna ka jarteen dhaqaalihii loogu talagalay. Galmudug iyo dowladda dhexe ayaa muddooyinkan waxaa u dhexeeyay xaalad aad u xun, iyadoona dhanka kale ay muuqato in maamulka Galmudug dhowaan ay xiriirka shaqo u jartay dowladda federaalka Soomaaliya. sidoo kale Puntland ayaa xiriirka shaqo u jartay dowladda federaalka Soomaaliya. Xaaf waxa uu sheegay in nidaamka ay ku socoto dowladda federaalka Soomaaliya marnaba aan lagu wada shaqayn karin, iyadoona madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu shalay Kismaayo ka sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya warqad dhawaan ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya oo quseysay qaar ka tirsan doorashooyinka dowlad goboleedyada aysan wax shaqo ah ku lahayn Jubbaland, isagoo sheegay in dowladda ay awoodda si gaar ah isugu koobtay isla markaana sidaa aan lagu wada shaqayn karin. dowladda iyo maamul goboleedyada ayaa u muuqda weli inaysan isku soo dhawaanin tani markii uu soo fashilmay shirkii lagu qabtay Garowe oo arrimo kala duwan dhinacyadan ay si gooni ah isugu qabteen. sida ay baahiyeen warbaahinta gudaha dalka Kenya qaarkood, Kenya waxaa Soomaaliya ay u dirtay warqad ay sheegayso in awood ciidan ay u adeegsan doonto shakhsiyaad diidan in Kenya ay darbi dheer ka dhisto xadka ay la wadaagto Soomaaliya. dowladda Kenya ayaa warqad ay 21 May u dirtay dowladda Soomaaliya ku hanjabtay inay awood ciidan u adeegsan doonto muwaadiniin Soomaaliyeed oo ay sheegtay inay burburin ama is-horistaag ku hayaan darbiga ay ka dhisayso xuduudda Soomaaliya. arbushaad kasta oo sii socota oo ka dhana shaqaalaha Kenya waxaa loogu jawaabi doonaa awood ciidan ayaa lagu yiri warqadda oo ay saxiixday wasaaradda arrimaha dibadda Kenya, isla markaana safaaradeeda Muqdisho ay u gudbisay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya.
25 May. Warqadan oo uu arkay wargeyska The Standard ee kasoo baxay Nairobi ayaa ku eedeysay Soomaaliya inay si joogto ah isu hortaagayso dhismaha darbiga iyadoo adeegsanaysa haween iyo caruur dhibaato ku haya ciidamada ammaanka Kenya iyo shaqaalaha darbiga dhisaya. Kenya waxa ay qiimeynaysaa khasaaraha waxyeelada ay sababeen muwaadiniinta Soomaaliyeed iyada oo dalban doonta magdhow ayaa lagu yiri warqada uu baahiyay The Standard oo uu sheegayo in uu xigasho fiican u hayo. Kenya ayaa ku eedeysay dowladda Soomaaliya inaysan ugu abaalcelin samafalkii ay sameysay markii Kenya ay hakisay dhismaha darbiga muddo 2 toddobaad ah sanadii 2017 waxay muujisay dulqaad, wanaag, saaxiibtinimo, daris wanaag ayaa lagu yiri warqada uu baahiyay wargeyska The Standard. Sidaa daraadeed, Kenya waxay rajeynaysaa in Soomaaliya ay ku jawaabto iyada oo qaadaysa tallaabooyin lagu xaqiijinayo in amniga xuduudda Kenya aysan hor istaagin muwaadiniin Soomaaliyeed ayaa lagu yiri warqada. Dowladda Soomaaliya ayaa beenisay in caqabad ay ku tahay dadaalada Kenya ay ku sugayso amniga xuduudeeda. Dowladda Soomaaliya waxa ay si qeexan u diidaysaa eedeymaha ah ama ku lug leedahay waxa lagu qeexay warqada dowladda Kenya, waxaana la sheegay in dowladda Kenya arrimahaasi ay si gaar ah uga fiirsanayso. Sidoo kale, dowladda Soomaaliya kama warhayso mana haysto wax cadeymo ah oo muujinaya in muwaadiniinteeda ay waxyeelo u geysteen, balse Kenya ayaa ka dalbatay in arrimahaasi baaritaano gooni ah lagu sameeyo. Dowladda Soomaaliya iyo Kenya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxay ahaayeen kuwo xiriirkooda uu ahaa mid marba marka ka dambeysa aanan marnaba wanaagsaneyn, iyadoona arrimaha diblomaasiyadda si weyn la isugu hayo. Deegaano ka tirsan maamulka Galmudug ayaa maanta looga dabaaldegaya munaasabada koowaad ee Ciidul Fitriga, iyadoona Sheekh Axmed Shaakir oo ah madaxa xukuumadda Galmudug uu fariin u diray shacab weynaha deegaanada Galmudug ku nool. Madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa ambalyo ku aadan dhalashada bisha Shawaal waxa uu diray dhammaan islaamka gaar ahaan shacabka reer Galmudug. Sheekh Shaakir ayaa sheegay in bulshada Soomaaliyeed uu la wadaagayo farxadda Ciidul Fitriga oo berito ama maanta oo Arbaca ah deegaanada Galmudug looga dabaaldegayo. Sheekh Maxamed Shaakir ayaa waxa uu Allah uga baryay inuu ka aqbalo dhammaan dadkii soo gutay acmaasha soonka intii lagu guda jiray bishii barakeysaneed ee Ramadaan, isagoo shacabka reer Galmudug ku booriyay inay farxadda ciida awgeed isu gargaaraan si Allah uu ugu naxariisto. Iyadoo inta badan laga ciiday shalay deegaanada kala duwan ee dalka Soomaaliya ayaa muuqata in haatan Galmudug sanad waliba ay maalin ka dambayso maalmaha sida caadiga ah looga ciido gobolada kala duwan ee dalka Soomaaliya, iyadoona Galmudug ay ku eedeeyaan qaybaha kala duwan ee Soomaaliya in dadka kale ee gobolada dalka Soomaaliya ay iska afuraan iyaga oo aan cadeyn u haynin in ay tahay soon oo amaba ay tahay maalinta ciida. Taasina waxa ay keentay in Galmudug ay sheegto in marnaba aysan arrimahaasi u dulqaadan doonin, waxaana deegaanada kala duwan ee Galmudug ay yihiin kuwo si weyn looga maqlayo takbiirta. Sidoo kalena shacabka ayaa loogu baaqay inay si xasilooni ku jirto uga qayb qaataan ammaanka guud ee deegaanada Galmudug, iyadoo Galmudug ay sheegeen inay diyaar u yihiin in amniga la sugo gaar ahaan inta lagu guda jiro salaada ciida. Shalay waxaa halkaasi dadka ku nool intooda badan ay ahaayeen kuwa sooman, taasi oo keentay in Galmudug aan shalay laga ciidayn isla markaana maanta oo Arbaca ah si weyn halkaasi looga ciidi doono.